السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي سود الأواد وأنيو صور لابتي مر لباد إيو مر صدحاتنا إيو معدي فيلم سنفهتين أصحابتي فرفت لكم لي هاي سبسكرايب تإيسار لايك كومنت شير وقول إيسار انتين أصحابي يا انت إيسار تنحلي سبسكرايب تو محسنتين thank you very much أصحابتي ولا لهي بهنتين ما أنتو وحان كهدل الرباء waxaan ka hadli rabaa arin dhacday oo meelahan ka dhacday I don't know meelay ma garanay laakiin maalin kasta waxyaalaha aan ka hadalna ama aan sheegno dhibaatadeeda ay leedahay ma fahanteen marka waxa waaye waxaan maqlay maamo oo sujuudi qabta ilmo I don't know ma afar qabta ma aqaan malina inay shan qabta oo meelahan lagu xoogay Soomaali aheeda waxa la ilma agoomay haysatay ilma agoomay haysatay waa la xoogay xoogowga looguma aamusin kasii daran dilna waa loogu daray ayada miskiinteed waa la xoogay nafteedana waa la dhaafay infaanteen asxaabe marka waxyaalaha qaar nimankan ay sameynayeen waxaa fiican inay ka waantoowaan inta xumaan oo sameynaysa oo gabdhaha maskiinaha ha suuqaysana waxaan leeyahay ilaahay ha ka qabta ilaahay ha ka qabta because qof dumar oo masaakiin in maalin walba dib loo geysto waa laga fiican yahay xoogaho ma fiicna ma fahanteen asxaabey horta maamadaas miskiinta soo ducooy intuu ilaahay janno firdawsa galiye soo duceyntiis ilaahay janno firdawsa galiye ma fahanteen asxaabey wax oo maxaa la dhihi jiray la yareysta ma aha wax oo soo sahlan ma aha asxaabta sharafta la fahanteen waxaan deynaa nimanka ku xasuubinaan waxaan deynaa ilaahay waxaan ugu baryeynaa inuu ilaahay lug iyo laba ka gooyo because naag waa iska maskiin waa iska maxaa la dhihi jiray xoog ma qabta meel ay wax kaaga bilaabo ma jirta ina maalin kasta ha suuqdaan ilmaha yaryarka ah oo had soo kacay asaas yeeshaan kuwa maxaa la dhihi jiray dhaxaad asaas yeeshaan maamo dhinka u dhacdaan diinta muslimka ma sheegaysa walaalayaalo gabdhahan way idin dhaleen way maxaa la dhihi jiray gabdhihiina way idinka dhalay habar hooyayna yihiin walaasha waaye meel aad ku kala baxsantiin mala maanta adiga naftinkaada oo gabdhaha muslimku ciyaara ama wax isku sameeyna walaasha hada wax lagu sameeyo si ka darna ugu danqanaysa si xuna ugu danqanaysa marka ma aha inay walaashana ka danqatid tan kalena aad ku ciyaartid diin sheegaysa malaha waayo horta muslim hadaan diinta muslimka marka aan ku jirno muslimnimada wala la fiirinahay qabiil iyo waxaas yar iskaga soo tax because diinta muslimka qofkan haduu muslim yahay ilaahu munaajiriyaan ahaada haduu muslim yahay ilaahu haduu roomo ahaada cadeen haduu roomo ahaada cadaan u taqaaniin fahanteen haduu roomo ahaada fahanti marka waa walaalka muslim haduu oo laa ilaaha illa allah muhammad rasuulullah uu dhahay waa walaalka ma fahanteen asxaabe marka waxa fiican gabdhaha masaakiimaha oo walaalihiin ina maxal dhijir idinka badbaadaan oo maxal dhijir gacantiin u geysan dib u geysan oo xoogitaanka ay ka dhaaftaan oo dhibaatada ay ka dhaaftaan please waxyaalaha qaar waxa jirta laga damqado oo xanuun laga dareemayo hadda maanta hal wallahi qof doorkaasayta kaligiis mara kara ma jirta because waa cabsanaa qofkaas heblaaya inta lagu xoogay to kale inta lagu xoogay tuulu fulana lagu xoogay Soomaali geeskeeda lagu xoogay marka baqdina u dhimanay freedom ma la haysto marka walaalayaalo waxaan idin leeyahay please nimanka waxaan leeyahay please ka daaya gabdhahaas xoogaysan because ma fiicnaba diiniyan ma fiicna wax fiican mid aad leeshiirsado hataa ilaahu ma qodbo sarahada doontid ku guursatid ilaahu hadaa doontid saarabtiin ma isku heshiin laakiin xoogitaanka iyo khiyaanada iyo dhibaatada ka daa gabdhaha bismillah hooyada maanta in la xoogo jidkaas lagu xoogo ma rabtid mise walaasha in lagu xoogo ma rabtid laakiin gabdhaha muslimka u bareeraysa oo sadilo wili dilitaan qabri u sii hooynaysa ha ka noolaad waxa karta u dilay ya dil ku dhahay please waxaan idin leeyahay
ka daaya suuqa muslimka ya gaalada oo diin haysanin waa la xooga kama maqleysid laakiin Soomaali hadaan nahay maalin kasta waa la xoogo kuwana wax ma kala faral miya walaalayaal naga daaya fadlan naga daaya marrabna dibka naga dhaafa war ninka gabar xoogo ya waxa fiican inta la soo qabta station iyo dacwad iyo waxaas ma inta la soo qabta la jarjara hilib ñir ma taqaanin idinka codka ahaan in loo jarjaro oo la soo dub oo meel kasta lagay wallahi billahi la hada sas liyeelay wat am shuba wallahi oo billahi oo tallah nin dambe oo naagta sas u firixta lama arkeen marka waxa fiican inaan naga dhaaftaan dibka inaan maxal dhijir waxaana sameynaysan iska dhaaftaan asxaabe please waa idan bariya wiilasha walaalay waxaan leey ka dhaafa gabdhaha masaakiinta dibka ana wax kale oo haay ma jirto intaas haya ya asxaabe subscribe tan ha iga hilmaamina like share garay horta share garay niman badan ha arkaana ma fahanteen share garay ma fahanteen asxaabe marka intaas idin haya subscribe isaar like comment share garay in la share garay jirtaan ku dhahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير بدن